Uumiyaha qaranka, mujaahidkii ugu weynaa, aabbihii Tunuusiya, hogaamiyaha madax-bannaanida, naanaysyo badan iyo midno ku xeeran oo joogay ilaa maanta madaxa khilaafka Tunuusiya. Madaxweynihii ugu horreeyay ee Tunuusiya waxa uu xukumayay 30 sano. Waxa uu shabahay hogaamiyihii Turkiga Kemal Atatürk. Waxa uu aasaasay maamuladii ugu horreeyay ee cilmaani ah ee gobolka. Wuxuu amray in la mamnuuco soonka dadka cilmaaniga ah iyo kala saaridda diinta iyo dowladda. Waxay dhalisay muran muddo 10 sano ah. Weli waxa uu ku nool yahay qulubta qaar badan oo Tunuusiyaan ah. Habib Bourguiba waxa uu dhashay 3 Agoosto 1903 magaalo xeebeedka Monastir. Ku dhawaad dhalashadiisii, aabbihiis waxa uu ka howlgabay ciidamadii Cuthmaaniyiinta inuu dhammaysto waxbarashadiisa si loogu dhaafo adeegga ciidanka. Waxa uu ku biiray macadka Faransiiska ee Carnot Institute, waxa uuna ka qaatay shahaado dugsi sare ah. Kadib haddana waxa uu u safray Faransiiska. Taariikhdu markay ahayd 1924, waxa uuna bartay kulliyadda xuquuqda iyo culuumta siyaasadda. Waxa uuna ku bartay jaamacadda Sorbonne. Waxa uu ku soo laabtay Tunuusiya 1927 kadib markii uu soo qaatay shahaado bachelorka ee 30 sano kadib. Waxa uu bilaabay shaqadiisii siyaasadeed ee halgamaa dastuuri ah. Wuxuuna aasaasay wargeyska Tunisian Action. Markii uu ku noqday Tunuusiya, waxa uu ku soo biiray xeerka xorriyadda dastuuriga ah sanadii 1933 ilaa uu ka tanaasulay isla sanadkaas isagoo ka quustay dastuurka cusub. Tani waxay ahayd bishii Maarso 1934. Tanna waxaa taageeray Maxamuud al-Badr iyo Saahir Safar al-Bahar. Tan waxaa sabab u ahaa ka qaybgalkiisa mudaharaad caan ah, kaas oo si arxan darro ah uga hor yimaadeen booliska Faransiiska. Kadib markii uu u guuray magaalada Faransiiska ee Marseille, halkaas ayuu joogay ilaa 1942. Halkaasna waxaa looga soo celiyay Tunuusiya. Waxay ahayd tobnaadii 1943. Waxa uu markii ugu horreysay ku guursaday Faransiiska Madeleine, waxayna ahayd 36 sano jir markii uu la kulmay. Waxayna ahayd carmal ka mid ah saraakiishii Faransiiska ee ku dhintay dagaalkii Koowaad ee Adduunka. Waxayna ka weynayd 12 sano isaga. Waxayna u dhashay wiilkiisa keliya, Habib Bourguiba Jr. Wayna kala tageen 22 sano kadib markii ay isqabeen. Laakiin wuu sii waday xiriirkii uu la lahaa, iyadoo uu ku calaamadiyay dhammaadka nolosheeda kahor dhimashadeeda 1976. Waxa uu mar labaad guursaday Wassil Ben Ammar si rasmi ah 12 Abriil 1962, iyadana waa reer Tunuusiya. Xaflad weyn oo ka dhacday qasriga Damarsa, Wassil Ben Ammar, kacaankii reer Tunuusiya, hogaamiyey halganno qaran oo dhowr ah oo looga soo horjeeday gumaystaha ilaa la qabtay 1948 lana xiray. Tan iyo markii uu soo noqday, asxaabtii xisbiga dastuuriga cusub waxay ku soo urureen hareeraha isagoo ka dhaadhiciyay inay taageeraan xulafada xisbiga labaad ee adduunka, iyadoo rajeynayay inay ka faa'iidaystaan dhammaadka xisbiga. Laakiin Faransiisku waxa uu ku noqday Tunis mar kale 1945 si loo aqoonsado xukunka gudaha ee Tunuusiya. Wadaxaajoodyada waxay ku soo socdeen si xawli ah ilaa iyo intii macadyada madax-bannaanida loo saxeexay Maarso 20, 1946. Bourguiba waxaa laga dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda dalkaasi Tunuusiya.